رئيس الوزراء كحجين كصوماليا مدن مهدي محمد جوليد خضر أيا بي بي سي دا وشيغي إن مدحوينه ayaa BBC da u sheegay in madaxweyne farmaajo uu diyaar u yahay inuu ka dego magaalada Hargeysa isagoo calanka Soomaaliya sida laakiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Soomaaliland mudane Saacad Cali Shire ayaa sheegay in aan wali halkaasi la isla gaarin mar dhow ayaad maqli doontaan hadalka mudane Saacad Cali Shire balse marka hore waa ka ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya mahad maxamed guuleed khadar oo arintaasi ka hadlaya sida la socoto waxa jiray wada hadallo u socday Somaliland iyo dawladda dhexe federaalka Soomaaliya oo bilaabmay sanadii 2012 meel fiican marayay markii madaxweyne farmaajo la doortay waxa uu ballan qaaday in wada hadalladaas la dardargelin doono wax kasta oo tabashooyina dawladda federaalka iyo madaxweyne farmaajo ay dhageysan doonaan waqti aan siino la wada hadlo maadaama dad Soomaaliyeed aan nahay wada hadallada jadwal iyo qorshe ayaa anaga haddaan nahay dawladda federaalka aanu u sameynay waxaad ogeyd in doorashooyin ay Somaliland ku soo aadanayeen tartan doorashooyinka madaxweyne oo December sanadkii tagay dhacaysay markii aan xiriirnayna waxaan fursad siinay in doorashooyinku qabsoomaan hadda madaxweynihii la doorto iyo xisbigii soo baxana aanu la ambaqaadno wada hadalladaas waa tahay mudane khadar marka doorashadii Somaliland sidaynu ka warqabno waa ka dhacday madaxweyne Muuse Biixi baa soo baxay xisbigii kulmiye inta kadib wax xiriir oo rasmi ah ma sameeyeen ku talagal iyo xiriir waa jirtay in madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ay sarkaan bishii March ama April horaanteeda laakiin ma ay dhicin arrimo farsamo awood iyo xiisadii ka dhalatay dagaalkii Bakaraq oo aanu marka hore isku danayn xooga la saaro labada dhinacba in la joojiyo Somaliland iyo Puntland arintaas waxa u baahatay in laga shaqeeyo marka waqtiga oo aan ku tira jirnay suurtagelimadeeda wajiga u horeeya inuu dhaco ugu yaraan labada mas'uul ay sarkaan oo u sareeya may la suurtagelin duruuftaas awgeed laakiin annaga xagga iyaga ku talagalkeegu waa sidiisii naga go'an tahay waxaanu ku tala jirnaa in aan dardargelino ayna qabsoonto sida ugu dhaqsaha badan ilaahay maanta waxaad tiri in madaxweyne Biixi uu Muqdisho yimaado waa fiicnaan lahayd sidoo kalena farmaajo inuu Hargeysa tago waa waxaad soo dhaweynaysan marka imika ma jira qorshe wada hadaladii Muqdisho ama Hargeysa lagu qabanayo oo aad hadal haysaan idinku anagu waxaan aaminsanahay waa la gaaray waqtigii madaxweyne farmaajo oo Hargeysa ka degi lahaa wada hadaladu ka furmi lahaayeen dibna uga bilaabmi lahaayeen dhul Soomaaliyeed waxaad ogtahay 60kii markii waqooyi iyo koonfur ay midoobeen ma jirin cid dhexe oo dhexdhexaadinaysay ama isu geenaysay boqolyow iyo hilow Soomaaliyeed ayay ku timid iyagoo reer Hargeysa calankiisa ay yimaadeen xamar cid dhexe oo u dhaxaysay oo saanacadaale ah ama ajnabi kale ah oo wada hadashiinaysay ama isu keenaysay ma jirin rabitaankaas jiray wixii Soomaalinimo lagu waayo laguma helayo in dad shisheeye ay noo dhaxayso waa tahay marar badan labada dhinac siyaasiyiinta Hargeysa waxay tirahdaan goolistaanka Soomaaliland waa muqaddis siyaasiyiinta Muqdisho waxay tiraahdaa midnimada Soomaaliya waa muqaddis ma isleedahay taas waa caqabad marka horeysa in la isu yimaado oo la wada hadlo oo la sheekaysto ayaa miftaax u noqonaysa aaraada iyo afkaarta la kala qabo in meel ay marka dambe ay isugu ururaan marka haddii aynu laba meelood kala taagnaano oo niraahno waa ar iyo ama muqaddis iyo muqaddis waxaan filayaa ma dhaqaaqayno marka ma dardargelina ma cusboonaysiina dhiig cusub ma gelina wada hadaladii soo socday oo markii ugu horeysay sarkayaan wada hadallo soo jiray ambaqaadkoodii oo labadooda ku cusubna ay dardargelinayaan waji cusub iyo tamar cusub iyo karti cusubna ay tahay in ay geliyaan taas waa naga go'an tahay dawladda federaalka madaxweyne waa ka go'an tahay farmaajo diyaar baanuna u nahay anagu xageeyaga waa hagaag ugu dambeyntii mudane khadar ra'iisul wasaare dawladda federaalka Soomaaliya anigoo aad kugu mahadnaqaya adoo soo koobaya waxyaabaha kale inta badan la isla biyadiido waxa kamid ah in Soomaaliland ama aaminsan tahay anaga oo dawlad ah ayaan Soomaaliya la midownay adiguna hadalkaaga waxaad ku bilowday in ay yimaadeen Muqdisho iyagoo calankiisa laakiin Soomaaliya siyaasiyiinteeduna iyaguna ay arkaan in wali Soomaaliland ay tahay gobol kamid ah Soomaaliya
marka isbeddelkan iyo furfurnaantan iyo aad sheegtay iyo maxaa la yidhahdaa dardargelintan siyaasaddaas wax ma iska beddelayaan madaxweyne farmaajo waxa uu diyaar u yahay isagoo calankiisida inuu hargeysa ka dego annaga bisaylka iyo ku talagalka aan rabno inay soomaaliya isla fahamto oo heerkaa la gaaray lana taagan yahay kaas weeye wax walba haddii la wada hadlo oo laga wada hadli karaa waa suurtagal kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar oo khadka telefoonka muqdisho igu waramayey haddaba maxaa xaqiiqdii hor taagan in ay wada hadalladu dib u bilowdaan maxaana diidaya in dhul soomaaliyeed lagu wada hadlo su-aashaasi iyo qaar kale ayaan weydiiyey mudane sacad cali shire wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee somaliland wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo bilowday sanadkii 2012 iminka waxay ku jiraan runtii hakad bay ku jiraan hakadka waxa keenay ka dhashay bishii March markii dowladda Soomaaliya ay ka sameysay cabasho badan iyo sawaxan ka sameysay heshiiskii ku saabsanaa horumarinta iyo ballaarinta dekedda Berbera ee dowladda Somaliland iyo shirkadda DP World iyo waddanka Itoobiya kala saxdeen Imaaraadka laakiin taa macnaheedu maaha in aanan diyaar u ahayn wadahadalkii in dib loo bilaabo wadahadalladii inaad bilowdaan si kastaba ha u baaqadeene saad sheegtay diyaar ayaad u tihiin madaxweyne Muuse Biixina diyaar ayaan u nahay buu yiri mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya tusaale ahaan ra'iisul wasaare ku-xigeen isaguna diyaar ayaan u nahay buu yiri waxa kale oo uu sheegay in haddii ay yihiin mas'uuliyiinta Soomaaliya ay diyaar u yihiin in madaxweyne Farmaajo isaga oo calankii sida uu magaalada Hargeysa yimaado ama Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland uu Muqdisho yimaado taa maxaa ku diidan tihiin dad Soomaaliyeed inay wada hadlaan dhul Soomaaliyeedna lagu wada hadlo waa maxay dhibaatada ku jirta saacadda wasiir si ay noogu suurta gasho inaan wada hadal ka wada bilowno amba Hargeysa amba Xamar waxa ka horeysa inaan istictiraafno marka dee waa suurtagal inta ka horeysa wuxuu bay noqonaysaa meel kale inaan ku wada hadallo oo mataqaana markhaati kale yeelato iyo maxaa dhexdhexaadiyaalba marka inaanu istictiraafno sidee macnaha inaad soo ictiraaftaan inaanu nahay laba wadan oo dee jira oo madax bannaan oo kala madax bannaan laakiin jaara sida Itoobiya maxaa la Eritrea laakiin Dr. Saad adigoo iga raaliya haddii aad istictiraafsan tihiin oo laba dal oo madax bannaan aad soo ictiraafsan tihiin wada hadaladani may yimaadeen idinku bedelkeeda maxaad haystaan idinku aad bedelkeeda taas haddii aad diideen in dhul Soomaaliyeed lagu wada hadlo oo aad tiri lama gaarin bedelkeedu waa maxay horta dee mar walbaba yani waxyaabo fara badan baa laga hadli karaa laba wadan oo jaariba dana fara badan baa ka dhaxeeyay ka wada hadlaan saad la socotana ilaa iyo 2008 jeer baa la shiray 8 jeer baa waxa lagu shiray Somaliland iyo Soomaaliya dibadooda lagu shiray halkaan waxba iskama bedelin sidii geedi socodka wada hadalku ahaa ayuun bay noqonaysaa iminkana ilaa inta la dhameynayo oo meel la isla dhigayo in maxaa yiraahdaa arrimaha naga dhaxeeya in lagu wada hadlo meel dibadda ah waa tahay marar badan waxaad istaagtaan in go'aanshaha Soomaaliland uu muqadas yahay siyaasiyiinta Muqdishona midnimada Soomaaliya ay muqadas tahay tanaasul baa labada dhinac looga baahan yahay ka Soomaaliland ahaan maxaa ugu yar ee aad ka tanaasuleysaan maxaa ugu weyn ee aydan ka tanaasuleyn horta dee go'aanshaha Soomaaliland muqadasun la iskama oranay dadka Somaliland 1991 way shireen 2001 waxay qaadeen afti ayay galeen labadaba waxay go'aansadeen inay xornimadoodii la soo noqdaan Somaliland wadan ka go'aya maaha Somaliland waxay laba wadan oo xor oo isku darsaday oo imkana kala baxay wala kala baxay maaha kala goosi runtii maaha waxaan ogol lahayn in Somaliland in Soomaaliya ula noolaano si wanaagsan oo naga dhaxayso cilaaqaad jaaro oo wanaagsan iyo ganacsi iyo socod iyo wax walba oo laba wadan oo jaar ka dhaxeeya taas baan ku diyaarinahay waa hagaag Dr. Saad dinac kale hadii aynu ka eegno iminka muddo dheer Somaliland waxa ay raadinaysay ictiraaf caalamka waxay yiraahdeen Muqdisho ayay ku xidhan tahay dadkii wadan baad aad mas'uul ka tihiin ay dhalinyaradu u badan tahay shaqay u baahan tahay maalgelin baa loo baahan yahay dhaqdhaqaaq baa loo baahan yahay Muqdishoana waxay idinkaga xidhan yihiin marka inaba ma soo tanaasuleysaan oo si ay noqotaba iyaga si inay tanaasulaan maxaad ka filaysaa runtii ma hadii anu waxaan ogol lahayn inaan noqono laba wadan
oo jaara oo isu socod ka dhaxeeyo oo ganacsi ka dhaxeeyo oo ay ka dhaxeeyeen heshiisyada imkabada ka dhaxeeya barwaaqa sooranka maxaa bariga Afrika ee Comesa igad ka dhaxeeyaan ka mid weeg maxaa ka Yurub oo kale ka dhaxeeya marka waxyaabo fara badan baan runtii ka heshin karaa iska kaashan karaa dhinac walba hadii noqoto dhinac siyaasadeed hadii noqoto dhinac nabadgelyada hadii noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga wax badan baan runtii iska kaashan karaa oo keeni karaa amba abuuri kara xaalad maxaan idhahdaa maalgashi iyo shaqo abuur oo de labada dhinacba dhibaatada maanta ka haysta xagga maxaan shaqo darrada wax ka qaban karaa kaasinaha waxa uu ahaa Dr. Saad Ali Shire wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland oo khadka telefoonka isaguna igu waramayay asxaabta Facebook ee ku xiran